الله naxariistay gaashaan la dhexe maxamed macow xalan leh taliyay qaybta gobolka Hiiraan ee dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa dhintay kadib dagaal dhaxmaray ciidamo kala taageersan maamulka Hirshabeelle iyo gudoomiyihii xilka qaadista lagu sameeyay Yuusuf Axmed Hagar Dabageed dagaalka ayaa sidoo kale waxa ku dhaawacmay taliyay ku xigeenka saldhigga degmada Beledweyne Bashiir Cadaani kaasoo la sheegay in dhaawiciisa uu halis isla markaana loo soo qaaday magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan waxaana dagaalkan uu ka dhacay deegaanka Kalabeer oo ah kastamka kaliya ee dhaqaalaha gobolka Hiiraan uu ka soo xaroodo isla markaana 25 kiiloomitir dhinaca waqooyi kaga beegan magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan waxaana dagaalka uu ka dambeeyay kadib markii ciidamada maamulka Hirshabeelle ay weerar ku qaadeen ciidamo ka marqaatay Yuusuf Dabageed oo ku sugan deegaanka Kalabeer ee gobolka Hiiraan waxaana wararka qaar ay sheegayaan in haatan Kalabeer ay gacanta ku hayaan ciidamada Yuusuf Dabageed dhinaca kale qaar ka mid odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan oo shir degdeg ah iskugu yimaaday ayaa ugu baaqay madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare inuu iska casilo xilka maadaama uu ku fashilmay awood hogaaminta Hirshabeelle afar mar shan maras imaaday oo fatahaad ay socoto oo abaar socoto oo colaad socoto wax ka gooyo waxba uma tarin dhibaatadiis abuuritan hadda maanta Hiiraan taala ka mid tahay maxaa jira asiga u madanayo hadda ugu dambeysay lacagtii akoon ku jirtay jeebkaas ku shubtay waxaad la aaday Nairobi فزهادي بقول كل الدولة ده إحنا نود يقدرون أجنحه ولين موج ساكن شيء هنا أجرن مغسلان كل سنة جيب كذا وشوف تيجي إحنا قاعد أكيد نيروبي وريه ونيروبي دل كذا ما هدت كذا ما ودن كي إدت كي سواد إباتيسي وفزهاديسي وحن ولا صمرن أم جد أم سقاط جد النقاسيسي محمد عبد الوارو كجوك هيران وابابسي كجوك وحاولي بشربت هذه عزي قاعد اسكو جرا اسعسي لك نحبح خاصة ماشي اللي يراهدو هيران اما مغالدان بلد وينو دب ما اوغي واحد دافع او سو ابوريون انغا ان اوغنahay malaha runtina in la sheegay la rabaa waa arkaysiin oo laba jeer ama saddex jeer oo bayimid magaaladan balad weyne saddexdii jeer fitness ugu tago waaya maanta nafteeda asaga soo diray dad ay yimid waxay leeyihiin koonsan sameeynayna magaaladan hadda laga maanta aan taaganahay waxa ka jira dhibaato dagaal isgarbadiirin muxuu ahaay war iska diid qajijaca ka jirto intaba waxaan u haysanaa maxamed